بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Dr. Maxamed Macruuf maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo cudur dadka in badan ay ku rafaadeen oo dhibay cudurkaas oo loo yaqaan bawasiir ama hemorrhoid bawasiirku waxa waaye in ay bararaan xididada malawadka kuwaas oo banaanka u soo baxa qaarkoodna aan banaanka u soo bixin taasoo ay keento qofka in ay saxaradii ku adkaato badanaa dadku saxarada markay ku adkaato qofka markuu sameeyay inuu isriix straining waxa la markuu sameeyayo waxa imaanaysa in qofkii xididadii dhiigga siday ee dhiigga ka qaadi lahaa qaybta hoose ee saxarada meesha ay marto kor geyn lahaa in ay banaanka u soo dhacaan ayagoo dhiig wato bawasiirka waxa loo qeybiyaa ilaa 3 marxaladood marxaladda koowaad waxa la arkaa kaliya qofka dhiig ka imaanaya markuu saxarada kadib marxaladda labaad waxa la arkaa bawasiirka inuu banaanka u soo baxo saxaradana ay dhiig la socoto dibna oo u laabanayo hadii dib loo celiyo marxaladda saddexaad waxa in uu bawasiirka banaanka u iska yaala hadii xataa dib loo celiyo aysan dib u ceshmeyn taasoo la dhaho irreducible hemorrhoid sidee loo daaweeyaa bawasiirka intaan daawadiisa aan u galin waxa jira talooyin la siiyo qofka taasoo ka caawinaysa bawasiirka inuu yaraado ama calaamadihiisa ay yaraato ama uu ku dhicin qofka talooyinkaas waxa kamid ah qofka marka uu horeyso inuu cuno raashinkan la dhaha fiber foodka ama raashinka qolofta leh ama xuubka leh taasoo ay kamid tahay digirta ay kamid tahay masagada ay kamid tahay galeyda kuwaas oo fududeeyo in qofka saxarada aysan ku adkaanba ilaa bawasiir waxa keeno qofka saxarada markay ku adkaato waxa kale oo la isticmaalaa qofka inuu biyo badan cabo biyo badan hadii aad cabtid iyadana waxay ku fududeynaysaa saxaradaada inay jilicsanaato waxyaalaha kale oo la fiican in la sameeyo waxa waaye in mar walba nadaafada lagu dadaalo oo marka saxarada qofka si fiican uu nadaafadiisa u sameeyo markaan joogna marka daawada bawasiirka daawooyinka laba marxaladan oo kala qaadayna marxalad waxa waaye qofka iyadoo aan la qalin in la daaweeyo marxaladna waxa waaye in qofka qalin loo sameeyo qaliimadana laba nooc oo kala qaadi doona marxaladda daawada markaan joogno waxa jira daawooyin cremis ah oo la mariyo area bawasiirka uu ku yaalo makaniini in qofka uu isticmaalo marxaladan markaan u gudbayna daaweynta qaliinka la xiriira ah laba qaab aan kala qaadayna mid waxa jirta hadda aad iyo aad loo isticmaalo faa'iido badan ku jirto dhiig aan qofka ka keenaynin dhibaato fara badan aan lahayn faa'iidana qofka uu ku qabayo taas waxa la dhahaa rubber band ligator waa machine looga tala galay in qofka bawasiirka looga xiro iyadoo qofka wax qaliin ah iyo wax suuxina aan la marinin rubber band ligator waxa waaye bawasiirka markuu banaanka u soo baxo waxa la sameeyaa wuxuu wataa wax la dhahaa band ligator ama injir yar oo lagu xiro bawasiirka meesha uu ka soo baxayo oo dhiigga uu siinayo baankaas markii la xiro jiridka laga xiro qofku waxa imaanaysa bawasiirkii in blood supply ama dhiigii uu heli lahaa inay yaraato meeshii uu ku qallalo asaga kaligiis iyo injirka yar oo lagu xiran inay isla soo dhacaan iyadoo qofka aan dhibaato marin problemna aan marin soo laabasho inay bawasiirkaas oo soo laabtan aad ay u adag tahay ilaa 90% dadka loo sameeyo kuma soo laabto bawasiirka taas waxa la dhahaa rubber band ligator faa'iido badan oo leeyahay waa naga heli kartaan anaga bukaan deeq ah kan labaad oo qaliinka ah waxa weeye in loo sameeyo wax la dhahaa open and close hemorrhoectomy wax la dhahaa in hemorrhoidka naftirkiisa inta la qabto meeshii lagu shubo lidocaine ama in micnaha kabaabisa lagu shubo bawasiirkii la qalo la jaro qofka loo tolo la soo tolo loo soo xiro taasna waa la sameeyaa laakiin mid qaliinka oo damba waxay keeni kartaa infection maadaama meesha meel saxara ay ka imaanaysa ay tahay waxay keeni kartaa qofka saxarada inay ku adkaato waxay keeni kartaa dhiig bax fara badan qofka inuu ku dhaco waxay keeni kartaa xanuun fara badan qofka inuu ku dhaco iyo dhibaatooyin kale oo tiro badan marka waxaan ku talin lahayn in qofka mar walba uu ka dadaala waxaan soo sheegnay cunooyinkaas fiber food kala dhaha biyo badan inuu cabaa straining waxa la dhahaa inuu iska ilaaliyo inuu marka uu saxaroonayo أو جيرته ومعركة إسريحه إنه إسكا إلاليو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.